kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan halka naga daawanaysaan waa Astaan Sports oo barnaamijkeena falaqeynta horyaalka oo eegno toddobaadka 13aad oo soo dhamaaday iyadoo lagu jiro wajiga labaad kulamo xiiso badan baa ka dhacay garoonka Hargeysa Stadium. falaqeynta waxaa marti ugu ah Farxaan Booq. Farxaan ku soo dhaw Astaan Sports iyo toddobaadka 13aad falaqeyntiisa. bismillahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay Astaan Sports binde toddobaadka 13aad baa soo dhamaaday iyadoo horyaalku kaarsiiyay marka 5 toddobaad 18 toddobaad ee loogu tala galay bal toddobaadkan 13aad maxaa la is oran karaa uu kaga duwan yahay toddobaadadii hore kulli horyaalka uu socdaayo wuxuu kaga duwan yahay kulli waa uu sii adkaanaya oo wala hirdamayo sidii aan hore wiiga hore u soo sheegnay waxa dhacaya qaarna way ka soo cararayaan mataqaanaa halkii hoose oo qaarna waxa weeyaan tartankii bay rabaan inay mataqaanaa kala qaadaan kaalinta labaad laftirkeedu waxa weeyaan waa darajo oo wax lagu galeeyaa horyaalkii mataqaanaa kala ee championka la sheegay ayaa isagana lagu galeeyaa marka darajooyin badan baa jira kulan ma xiiso badan baa dhacay macallimiin baa saxada ku cusba kulankii u dhaxeeyay ganacsiga iyo asluubta oo ku soo dhamaaday hal iyo hal bal kulanka maxaa kaaga baxay iyadoo macallinkii Yaasiin aanu saxada ka soo muuqan oo ciyaartoygii hore ee ganacsiga imikana macallinka waa Biiraxay uu ka soo muuqdo isbedel baa dhacay kooxda ganacsiga ku dhacay marka hore waxa haysan jiray Yaasiin macallinkii weynaa oo mataqaanay wali aanan ogeyn mataqaanaa cudurdaarkiisa waxa ka soo muuqday si kaliya uga soo muuqday laacibkoodii mataqaanaa goolinta iyaga u hogaaminayay oo teamka ninka ugu goolasho badan la filayaan inuu yahay Khalid Biiro oo imika isku bedelay macallin si degdeg ah marka kulli teamka waxaad moodaysaa maalintii dhaweyd inay taageero badan lahaayeen waxaad moodaysaa inay isku xidhnaayeen waxaad moodaysaa inay dagaal mataqaanaa ay diyaar u haayeen ciyaarihii hore looga bartayna way ka duwanaayeen qaab ciyaareedkiisuna wuxuu ahaa 5 inuu ku ciyaaro mataqaanaa dambe oo defense uu adkeeyo si uu ku cusub yahay macallimada si uu mataqaanaa uu helo dhibco fara badan kulankaas hal iyo hal ayuu ku soo dhamaaday asluubta iyadoo laftigeega barbardhaca ay keentay iyadoo gool ku dhaliyay ciyaartoyga Wardi bal kooxda ganacsiga waxyaabihii ku cusbaa aad soo oran karto kulamadii hore kaga duwanaayeen maxaa kamid ah kooxda ganacsiga waxa ku cusbaa sidaan ku sheegayo horta laba weerar ay ku ciyaarayeen oo kubadooda waxa u badneed counter attack kubadda la yiraahdo almacna kubadda markay go'do dadka kooxda kale ka soo qaadaan si markaaba mataqaanay weerarka u tagaan laba qof oo mataqaanay weerarka aan ka soo dhaqaaqin ayaa ku cusbaa difaacooda mataqaanay 5 ah ayaa ku cusbaa marka ganacsiga teamka ganacsigu mar walba waxay ciyaaraan kubad xoogan oo sare oo mataqaanaa tuuriyo ku xidhan oo mataqaanay aan difaacu kala haro iyo dhexdu ay kala haraan ay mar walba ciyaaraan maalintii dhaweyd waxaad moodaysaa ilaa dhexdu inay hadhayso oo Carabi iyo ninka la yiraahdo mataqaanay gaacur oo kaliya halka hore tagay walow jaran mar soo yara caawinayay waxa qaab cusub bay horta soo bandhigeen waana mataqaanaa dhibicna way ku keeneen dhanka kooxda ciidanka asluubta iyaga laftigeegu xaalada imika waxay ciyaareen 13 kulan 14 dhibcoodna way heleen bal sidaa la iskugu miisaami karaa dhibcaha iyo kulamada ay ciyaareen horta mataqaanaa dhibcaha iyo mataqaanaa ciyaarihoodu way isku dhow yihiin 13 dhibcood marka geemamka ay badiyeen baa markaa yar baraajahooduna uu badan yahay oo 3-4 way baraajiyeen waxa keenaya mataqaanaa inay mataqaanaa dhibcahoodii iyo isku guushooda yar marka teamka haduu guushoodu ay badan tahay mar walba gameski iyo guushiiba mataqaanaa way si kala badanayaan marka waxa keenaysa nimankaasi guushooda wali yar oo teamkii oo adiga arkaya xaaladda ay ku jiraan maalinba sida qolo cusub baa ciyaaraysa maalinba inama cusub baa ciyaaraya teamka asluubtu waana teamka anagu aan qabo inay ugu dad fiican yihiin macallinkooduna ma xuma laakiin haddana wali gaab baa jira oo mataqaanaa maalinba qaar maalin weerarka cusub maalin dhexda maalin difaaca marka wali qaab ciyaareedkoodu waxa weeyaan waa dhantaalay nimankaas imika kaalinta lixaad bay ku jiraan kaalinta sagaalaad kooxda ku jirto waa xol 12 dhibcood bay leedahay asluubtu u muuqan kartaa mid khadka cad soo gali karta kulli waa kubad waxani anigu laakiin ma qabo waayo mataqaanaa teamkan la yiraahdo asluubtu ismalihi way dhibcaha imka ay leeyihiin hadda ku darsadaan dhowr dhibcood laba game oo kala haday badiyaan halka sare sii tagayaan marka way ka badbaadi karaan bas leedahay waa hagaag kulan kale xiiso badan baa jiray biyaha iyo caafimaadka kulankaas oo ku soo dhamaaday 2 iyo 4 caafimaadka maxaa u sahlay inay 2 iyo 4 ay ku garaacaan kooxda biyaha
horta kooxda caafimaadku labada ciyaaradii u dambeeyayba way badiyeen si wanaagsan baana u badiyeen ciyaarna 2-0 bay ku badiyeen ciyaarna 4-2 caafimaadku sida hore u sheegnay kubaddoodu aad bay u fiican waliba tiimamka yar way la ciyaari karayaan laakiin caafimaadka waxyaabaha haysta waxaa ka mid ah tiimamkii waaweynaa baan ka badin karin kubaddu la ciyaarayaan laakiin waxa dhacaysa in tiimamkii waaweynaa aan iska celin karin sababtoo ah waxay ula ciyaarayaan sida tiimka yar ula ciyaarayeen ayay tiimkii weynaana ula ciyaarayeen taasana keenaysa markaa inay mataqaan caafimaadku mataqaan iyagu de mar horeba waxaan oran lahaa xagga sare geli lahaayeen waxa keenay tiimamkii baan kala fahansaneen maalintii dhaweyd waxay ku ciyaarayeen iyagoo mataqaanayay gool badan leh waxay ku ciyaarayeen 5 mataqaan haafkii dambe 5 dhexe ku ciyaarayeen waxaad moodaa ciyaartii kasii horeysana isla sidaa inay ku ciyaarayeen difaacooda way 4 difaac ku ciyaareen laakiin 5 dhexe ku ciyaareen waxaad moodaa nimankaas inaan weerarba aanay lahayn laakiin kulankan iyagoo nin casaan ka qaatay waliba qaybtii hore madax lahaa rijo intaa lag bikinaya kulli kubaddu mataqaanayay waxa ku xidhan tahay dadaalka dhalinyarada mar kasta ciyaarta ku jiraan qofka ka maqan waad buuxin karaysan oo mataqaanayay waxay suuro gelinaysaa in ciyaalku dhalinyaradu isku xidhnaadaan oo ay mataqaana mar walba isla jaan qaadaan ninka ka baxay systemka u buuxiyeen marka hore iyagoo 5 dhexe ku ciyaaraya weerarkii bay iska dumiyeen marka iyagoo gool leh waxa u suura gashay inay goolasha sii badsadaan sababtoo ah tiimka kale wuxuu isku dayaa in weerarka yimaado uu ka soo baxo meeshiisii macalinka biyuhu wuxuu sameeyay maalintii dhaweyto difaaci buu saar u guray maxaa u sahlay nimankan markii horeba dhex bay taageen caafimaadku dhex markay taageen waxa haystaan backup ay ku tagi karaan weerarka nimankan dhexda uga ciyaarna waa Xasan iyo Farxaan iyo Xamse Yare oo ah iyo Kookan kala dhasaguna casaanka qaatay waxa weeyaan niman farsamo badan leh way u fududahay inay goolka tagaan iyaga laftirkooda dhalinayo imika waxaad arkaysaa inay dhexdoodu ay goolasha dhalinayso ninka shaqada badan imika uu qabtaana waa ninka la yiraahdo Maxamed Fawzi Axmed Fawzi la yiraahdo dhagajiir la yiraahdo kuna aanaysan shaqada badan uu qabanay waxa weeyaan saddexdii weerarkii bay isaga caawinaya wuxuu sameeyay saddexdii weerarkii bay isaga ciyaar marna ku ka shaqo tagaya marna garabkan kale orodkiisuna uu badan yahay training-ka uu qabaana waxa weeyaan weeyaan marka waa sababta ay imika goolasha fiican ay u dhalinayaan isagoo ishinka ah kooxda iyo garoonka dhexdiisa biyaha 2-4 baa iyaga lagu qaraacay Cabdiqaadir maxaa la haboonay inuu fursad noocaas hadii nin kaarka cas laga siiyay qaybtii hore maxaa la haboonay inuu keeno waa su'aal wanaagsan weeyaan waxa la haboonayd maadaama ninkii ugu fiicnaayay centerka uga ciyaaray uu ka baxay ragana ay 5 difaac 5 dhexe waliba kula ciyaarayaan waliba Xasan soo galiyay ciyaartii oo weerarkii uu Maxamed Fawzi kala joogo inuu mataqaanayay uu dhexda waxaan jeedaa markii dambe u dambeysay uu difaaca guray laakiin markii uu ninku casaanka qaataba inuu weerarka soo badsado baahay sababtoo ah weerarka biyu aad u yaraayeen laba nin baa ciyaari ninka goolka labada nin goolasha u dhaliyay waxay ahaayeen laba nin oo mataqaanay fiican laakiin waxay u baahnayeen qof kale oo caawiya haddii haysan lahaayeen qof kale oo caawiya waxaan fil lahaa in goolal fiican keen lahaayeen waxa kulan kale aad u xis badan baa jiray isaguna maaliyadda iyo gaashaan 2-1 ayay ku soo dhamaaday gaashaan intaanan tegin maaliyaddan doonay inaan dul istaagno macaan iidaan kulamadii ugu dambeeyay guuldarooyin iyo barbardhac ayuu waayihiisa ku qaatay iyo wajigii labaadba maxaa sababay baa la soo oran karaa horta waa qoraal kubadda waa qoraal tani way dhacday waxa aniga ii muuqatay maalintii dhaweyd iyo maalintii ka sii horeysayba iyo wigagii dhaweydba in mataqaanay tiimkaasi aad moodayso halbooliyaashoodii inay maalinba u midimo qan yahay wigi hore waxa maqnaa odayo mataqaana kaaran iyo wax ku maqnaa iyo khadar casko kale wigan oo kale bahadoon iyo waxa fadhiyay Saleebaan marka waxaad moodaysaa maalinba laba dhowrka nin ugu muhiimsan ee geemka u baahan yihiin inuu ka maqan yahay ciyaartii dhaweyd ee maaliyadda mataqaana qaladaadkii dhacay waxa kamid ahaa tiimkii oo fadhiya oo si fiican iskugu fadhiya oo dhexdooda aad ay u wanaagsan tahay Superbag baa markii dambe dhexda laga saaray marka anu qaladkan arkay wuxuu ahaa 5 difaac ku ciyaareen maaliyaddu haddana markii dambe 6 difaac ay noqdeen sababta sababta waxa weeyaan inamada godadka ay ka ciyaarayaan waa imka ninka la saaq wuxuu ahaa mataqaanayay difaac waxa laga ciyaarsiiyay weerar wax shaqo ah kama haynin halka hore ha dheereeyo ha farsamo fiicnaado laakiin se wuxuu ciyaaray sidii uu difaac yahay kale offside kale sida looga baxo aad bay u adkeyd weerarka qaabku qaaday aad bay u adkeyd markii uu khadar caska uu soo galay dhexda waxaad moodaysaa horta ciyaartu inay yara fadhiistay hindina halka hore loo kaxeeyay waxaad moodaysaa ciyaartu inay center noqotay oo mataqaanay ay isku dayeen wax xumeeyaan laakiin de maadaama gool laba gool lagu leeyahay waliba ciyaartu haafkii hore tahay anigu waxaan qabay in weerarka aan soo kordhiyo ninka Liibaan haafka dambe imanayay in Liibaan xilli dambe inuu midaban malinaya inuu ku soo bedelo ninka saaq la dhado say ciyaartu markaa isku fadhiisto waayo khadar markuu baxay
Torino la saaray ciyaartu way isbedel weyn baa dhacay laakiin inuu la soo degdego un baahayd macalinku uu akhriyay kaliya gameka oo si fiican buu akhriyay laakiin waxaad moodaysaa inuu maalintii dhawada habsan ku yara jiro bahdoon oo kale inuu maalinta ciyaaro bahdoon iyo mukhtaar inuu iskugu keeno waayo labaduba waa laba nin xoogan farsamo leh outshoot leh mukhtaar waliba wuxuu leeyahay gudaha u gali kara wadii arkay goolka uu cunay labadii difaaca intuu gowracay iyo caadi u tagay marka waxa arkaysaa markaasoo kale iidaan inuu sameeyo baahayd macalinku inuu iskugu keeno labadaasoo kale وهذا عبد الموسى محاو سهل إنه ماليدا لبيها كجا بدي عبد الموسى هرتا كوحدة قاشان هرتا كوحدة قاشان واحد مودسة عياري قدام بي معتي أي جودر كبدسي إثبت الوين بهرتا تجرا وش كان لباد بجيبي ها واي تيمكو أول وحو عياري تري individual قف له عياري تري هل كان عبد الكريم يسكع عياري هل كان كلمة كلا عياري هل nin walba kala yibi ciyaareen laakiin hadda waxaad moodaa in wadadii isku xirka ay qaadeen sababtoo ah sida wax u weerinayaan saddex nin dhexda ninka China la yiraahdo aad mooso qaab ciyaareedka simka horyaalka qaybtii dambaba inuu kor marayo ninka Carlos la yiraahdo wuxuu ku soo kordhiyay teamkan awood fara badan Abdullahi Carlos ninka kale la yiraahdo Abdikariin isbedel weyn baa saddexdan ninka muuqda waxaad arkaysaaba walow Carlos ku cusub yahay teamka hadda yimiba waxaad arkaysaa in isla jaan qaado aad moodayso inay isku guri ku wada ciyaaraan mar walba oo kubadoodu waxaad arkaysaa inay siro fudud imika goolka Cabdikariin dhalanayo waxa weeyaan imika gool aad u wanaagsan uu dhibtay uu baxay si fiican buu dhili waxaad moodaysaa xitaa goolasha kale ay cunayeen oo ninka China la dhaw ka shaqeynay waliba waxaad moodaysaa teamku inuu hadda isla jaan qaaday walow aad moodo madaxu inuu yara go'aan weerarkoodu chance-yada ay helayaan habka ay chance-ka u abuurayaan uu qaranka ka yar yahay laakiin difaacood afartan nin difaac uga ciyaaray waa top saddexdan nin dhexda uga ciyaaray waa top goalkeeper laftirkiisu waa top waa goalkeeper fiican oo aad weyn laakiin waxaad moodaa weerarka inkastoo maalintii wada cayta iyo ninka shidal ay shaqo kale oo adag ay hayeen oo odayo ay khadar iska istaajiyeen waliba ma taqaanayay halka shaqo adag ka qaban lahaa oday oo sagaalkana uu haa caadil marka way cover gareyn weerarka laakiin scoorkii looga baahnaa ayaan meesha ka jirin waa hagaag kulanka loo aad xusub badan baa jiray dawladda hoose iyo waa xool 2-1 ayuu ku soo dhamaaday kulanka daawadeel fara badan baa indhaha ku hayay arday macalinkiisa wada ciyaari dadku wax islahayn in ardayga guuleysan doono mise macalinka guuleysan doona laakiin qadarkii waa lagu kala calaf qaaday bal kulanka waxyaabihii kaaga soo baxay maxaa kamid ahaa kooxda dawladda hoose maxaa u sahlay baa la soo oran karaa inay guul muhiim ka gaadho kooxda waa xool horta ciyaar waxay ahayd ciyaar dadku sugayeen oo laba macalin oo isku mataqaan arday iyo macalinkiisa isku ahaa oo in badan soo wada joogay gamekoodii koowaadna isku horyimi bay ahaayeen horta laba macalin oo aan ixtiraam u hayo weeyaan nin ciyaartoy baan isla soo hayno Maxamuud in badan baan soo wada ciyaarnay macalinkii dirdhaba isaguna mataqaan ixtiraam mudan marka gamekaasi mar walba marxaladiisu uu iska watay marka laga yimaado xitaa nimankan ka soo cararay B iyo nimankan oo ka soo cararay xagga hoose iyo nimankan oo horyaalkii raba inay nimankan goodireed shanto saaraan inay cagta u saaraan dhan kastaba hada gool noqoto iyo haday mataqaan noqoto dhibcihiiba ciyaartan marka ciyaar waxay ahayd xiisadaheeda leh oo tarbuunku soo buuxiyeen oo aad loo kala taageeriyay walow ay sigteen man qabaano mataqaanay kooxda dawladda hoose oo ay sigteen oo ciyaarta intii u dambeysay goolasha ay cuniyeen ninka Jimcaale Sooraan la yiraahdo Muuse Yare Rambo gool wuxuu cunay bada aad arkaysay marka kastoo ay nasiib tahay haddana ciyaar waxay ahayd kaba duwan ba ciyaarihii mataqaana hore dawladda hoose laakiin maxaa u sahlay baad leedahay inay 2-1 ku garaacaan kooxda waa xool waxa u sahlay horta ninka la yiraahdo mataqaanay macalinka oo wuxuu sameeynaya teamkiisa inta uu dagaalamaysa uu garanaya isagu marka macalinka horta koow aan siinaya walow aanan ka saari karin meesha dhalinyarada ciyaaraysa sida xoogan u ciyaarayso mataqaan aad moodo inay tareenkooda mar walba u wal yahay dawladda hoose maalmo dhexdaas waxa ka muuqday daal fara badan oo aad arkaysa inay ay soo liigayaan laakiin hadda halkoodiba ku soo yar noqdeenoo habka ay u ciyaareen waa hab isla haysta dhexdoodu way fiican tahay Khadirna weerarkiisu waxa weeyaan nin aad ogtahay inuu markasta isagu gool dhalinayo oo imika Khadir oo kale 18 gool maraya waana ninka ugu goolasha sare horyaalka wuxuu ka dhigay horyaalka sidii horyaaladii mataqaan Ingiriiska oo kale 18 buu imika hadda sii socda marka isagu wuxuu joogtay inuu dhaliyo fursada uu helayo ninkaas wuxuu joogteynaya fursada uu lugta ku dhigaba inuu dhaliyo ayuu ninkaasi joogtay marka waxa uu sahliyay goolasha fara badan ay dhalinayaan goolka labaad qaabna ay ku dhaliyay oran karaa goolkaas ma goolaha khaladka ka yimid difaaciyada fursad siiyeen goolkan labaad uu saxay kooxda dawladda hoose horta goolkaas khiyaano ah oo gool khiyaano buu ahaa difaaca waxay lahaayeen khaladka oo way nin striker
dee inuu furnaado waxa weeyaan waa qalad aad samaysan weeyaan waayo strikerku mar walba isagu wuxuu raadinayaa chance-ka uu helo inuu ka faa'iideeyo adiguna difaac baa tahay marka mar haddaad difaacday waxaa kula habboon inaad mataqaanaa aad mataqaan daba istaagto ninka aad ilaaliso mataqaana ka gaarsiis buu ahaa khiyaano ahaa labada nin difaac uga haya waxool waxa weeye laba nin horta way arago aad u khabiir oo maamulida teamka iyo mataqaana imka kor soo qaadeen Cabdiwali iyo aan iraahdo mataqaana Cadam iyo Suldaan waa laba nin way arago fiican laakiin mistake ay sameeyeen ba ahaa inay fasaxeen Khadir chance yeeto Khadir iyo waxad moosa Cabbo inay isfahansan yihiin oo mataqaana ayay waxa lagu isugu xiran yahay habka uu Cabbo kubadda u laagayado ay darba ahayd hadana waxa ka faa'iideystay Khadir oo goalkeeper-kana uu khiyaamiyo jahadu mu ka leexiyay kubadii dir dhaba qaybta dambe wuxuu keenay nin dhaxa Xamse Keesi isagoo dhaxda buuxinay isagoo nin weerar saaray maxay kula muuqatay bedelkaas ma inuu dhaxda adkeynay mise inuu kubaddan hor socodka kooxda waa xal inuu joojiyo macalinku marka aniga waxay la muuqatay inuu shakiyay oo cabsi gashay oo mataqaanaa nimankan ay weerarkoodu iyo dhexdoodu ay soo hujuumeen oo Muuse kala arkaysa inuu kubadda laga qaadi karin dhexda uu ma garanaysaa si fiican u soo maamulay marka macalinku wuxuu dareemay chance badan markay cuneen waxool in uu u baahan yahay dhexda iska kofar gareeyo iska joojiyo marka aniga waxaan qabi lahaa inuu markaas kale qof kale dhexa uu ku bedeli karo laakiin uu da waxna dhalin karo laakiin marka dambe wuxuu u xisjiruun adigu ma taqaanaa ciyaartu xaaladu way adag tahay ninkii weerarka ahaa bidixda ka kaxaynay kubadda uu saaray marka Xamso de burburiye weyna ayuu meesha keenay marka Xamso wuxuu sameeyay markiiba inuu kala jabiyo dhexdii ma taqaanaa waxool uu ma taqaanaa faawalo badan geysto oo meeshii joojiyo meeshii bada uu caburiyaba oo ay adkaataba in meesha halkan la soo maro kubadna la tuuro kubadna de ha dhanka waxool bani manna dhaxool waxool ay Maxamed Cabdi Xasan kooxda macalinka tababara kooxda qaybtii dambe waa qaybta labada macalin baa ciyaara maxaa la habboonaa uu fursad ka faa'iideysan lahaa inuu barbarac ku keenaa inuu kaga badiyo kooxda dowladda hoose horta Maxamed maalintii dhaweeto uu sameeyay wuxuu awoodi kariyay oo dadkii uu haystay uu soo galiyay weerar buu baahnaa weerarkii uu soo galiyay walow aan jeclaysan lahaa inuu ku daayo Rambo si ma taqaanaa madaxyada iyo kubadahan soo dhacay iyo waxa uga faa'iideysto walow isagu chance ulmiye hadana waxa ahayd mar hadduu gool u baahan yahay inuu Nuuruddin iyo isku keeno ninka la yiraahdo Rambo wada joogan ninka kale Maxamed Baakh la yiraahdo isaguna oo markasta teamkiisa marka soo galaba nin ciyaarta wax ka bedeli karay sidoo hore u ogeynba marka inuu daayo ayaa ila qurux badan uu mataqas isku keeno si uu chance-ka mataqaanaa u dhaliyaan gool walow ay qornayd haddana waxaad arkaysaa inay culays badan uu soo saaray dowladda hoose kulankaasna wuxuu ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa inta badan daawadayaashu ay wada sugayeen kulanka aad u xiiso badan baa jiray kooxda xidigaha cirka iyo Goodir wali Goodir waxay ku jirtaa inay hogaanka wali qacanteeda ku hayso 2-1 ayuu ku soo dhamaaday Goodir maxaa u sahlay baa la soo dhan karaa inay xidigaha cirka kaga badiyaan goolasha inta lag horta mar walba macalinka mataqaana iska leh farsamada iyo maskaxdan meesha yaacaysa macalin Jamaal wuxuu ku bilowday horyaalka qaab ciyaareed wanaagsan hal game baanu mataqaana laga badiyayba sidaan filayo iyo laba baraaja oo asluubtii wuxuu la baraajiyay iyo waxaan jeedaa caafimaadka waa lugtii hore tan dowladda hoose ma dambeysaan marinaya wuxuu lugtii hore ahaa macalinka Jamaal horta wuxuu sameeyay score aynaan mataqaanaa inagu dadka xataa aan qiimeynin 10 games buu badiyay way adag tahay 10 games lagu badiyo inaga 10 games waa 30 dhibcood ayuu shaqeeyay la isleeyahay ayuu shaqeeyay aad iyo aad marka waxa weeyaan 32 dhibcood buu leeyahay 32 dhibcood labada dhibcood wuxuu ku keenay waa baraajo hal ciyaarna waa laga badiyay marka Jamaal waa awoodda mataqaanaa Goodir ay haysato maskaxdu tuujinayo ciyaarta sidoo akhrinayo game-ka sidoo u bedeli karayo iyadoo saddex lagu leeyahay arkaysa inuu markaaba bedeli karayo mataqaanaa ciyaartaba hadduu mataqaanaa maalintii dhaweeto isaga laftigiisa uu sigto tabtii dowladda hoose ayaa ku dhacday oo mataqaanaa isaga laftigiisa wuxuu xiray bal horta goolkan ilaasho waxan waa ku bedeli kartaa marka Jamaal wuxuu sameeyay inuu difaacdo dhibcaha uu ku hogaaminayo waa wuxuu iska ilaalinay inuu qaldamo sababta 5 dhibcood buu leeyahay haddii ciyaar laga badiyo 3 baa waxa mataqaanaa 2 kilaatu dheeraanaya marka waxa weeyaan tiimamkii kale ku soo xigina way soo hirdamay oo soo socdaan marka Jamaal baa u sabab qaba walow dhalinyaro badan oo fiican uu haysto line-upkiisu isku fadhiyayo si fiican buu manage gareynaya hal god buu bedelaya oo arkaysa mar
difaaca wuxuu ka bedelayaa Shigli iyo Garyar iyo mataqaani kala saaric oo kasto saaric dhaawac ka maqay marna wuxuu sameynayaa dhexda ayuu cidda iyo Riin iyo Cabdiraxmaan Ilkaasi iyo Mujafo iyo marba isku yara bedelaya saddexda weerarka baad moodaysaa inuu mar walba ku soo mataqaani ay joogtayeen waana sababta keenaysa inuu guuleysto xidigaha cirka iyaga maxaa la haboonaa fursad 2-1 ay ciyaartu ku dhamaatay maxaa la haboonaa macallin maxamed aamin inuu sameeyo horta amiin waad arkaysa ciyaartu ciyaar fiican bay soo bandhigeen oo si fiican bay u ciyaariyeen waxa la haboonaa horta in striker uu samaysto sababtoo ah isagu wuxuu ka ordayaa inuu galo hoosta haddaan striker lahayn imka laba weerar ku ciyaarayeen waxa ka haysay cabsi teamkan weerarkooda uu fara badan yahay in 5 difaac kula ciyaaro oo dhexda xitaa u badsado marka waxa keenaya iyaga waxa cabsi gelinayay raggan weerarka u ah Goodir walow ay jaanisyo badan ay lumiyeen oo si fiican u ciyaareen oo dhaawac ku dhacay haddana waxaad moodisay inay cabsi badan ay hayso waxa la gudboonaa in weerarka kordhiso maadaama laba gool lagu leeyahay ciyaarta oo arkayo mataqaanaa inay xaaladdu mataqaanaa ku adag tahay inuu badiyo marka in weerarka soo kordhiso si shul amba shal maadaama gool lagu leeyahay waa inaad marka nin waxa la leeyahay nin qoyani biis kama dhago marka waa inuu shul amba shal sameeyo heedu strikerka uu soo gashado waa hagaag toddobaadkan 5 kulan baa waxa dhacay 5 kulan oo aad u xiiso badan oo 10 kooxood u dhaxeeyay toddobaadkan maxaa kaaga soo baxay farxaan ahaan maxaa lagu kala wanaagsanaa maxaa la isdheeraa maxaa macallimiintu ay ku kala ficnaayeen ciyaartooyda trainingkooga ma ka muuqdo qaar training qaba bal maxay waxyaabay ku soo baxay hal iyo labana la wada horta wax badan baa ii soo baxay oo mataqaana su'aal wanaagsan mid weydiisay waxa ii soo baxay waxyaabo fara badan horta kow waxaad moodaa garoonka in la qabsaday waxaad moodaysaa inay dhalinyaradii imika xaggii disciplinekii inuu yaraaday wixii de feerfeerka iyo buuqi iyo mataqaana marxaladii ka dhici jirtay garoonka xumayd inuu yaraaday waxaad moodaysaa oo kale tiimamkii inay training fiican soo wada sameeyeen wada neef leeyihiin oo aanay dhalinyaradii daareen wiiga waxaan jeedaa horyaalka bilowgiisii waxa inoo muuqday inay dhalinyarada qaar fara badan aad moodayn wadnuhu istaagayba oo ciyaaraha qaar dadka qaar haafka horeba la bedeli jiray marka way mataqaana isbedeleen oo isbedel weyn baa mataqaana ka socda imika horyaalka marka waxaan leeyahay hadii la sii kordhiyo ciyaaraha oo maalin basa loo sii kordhiyo dhalinyaro aad bay ula qabsanaysaa marka tiimam fara badan waxa jiray imika kubadoodu ay wel tahay oo aad u soo kacay markii horena aynu mataqaana la dhaliilayo isla qabsi fara badan macallimiintiyo joogteeyay garoonka inay qaar daawadaan walow ay yar yihiin sababaha lagu kala badan ay tahay inaad tiimkan daawato horta tiimkan ka soo horjeeda markaad daawato waxaad arkaysaa godad fara badan haddaad imka maalinta aad la ciyaarto istiraahdo daawo ma daawan karisid sababtoo ayna kaaga qaladkiisa ma sixi kartid laakiin waxaad daawan kartaa maanta markay la ciyaarayaan tiimka kale waxaad arkaysaa meesha uu ka khaldan yahay iyo waxa uu sameynayo macallinkaas iyo daldaloolka macallinka markaasaad arki kartaa marka waxa ii muuqday wiigan mataqaana in la ilbahay horta oo taasaa ku soo gabagabeysay waa hagaag daawadayaal barnaamijkeenii toddobaadkii 13aad ee falanqaynta horyaalka dalka Soomaaliland ee kooxaha heerka koobaad intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka waxaan la socodsiinaa anigu Cabdirasaaq Bindha waxa marti ugu ahaa Farxaan Booq waxaan iga tagnaa sidaa iyo salaam Allah